السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتوا عنا وناكسين غيرتها وذا سيدة توس كنا وضع ونساي ملك استو الدنيا أتك جوكتان ولكن عبد الرحمن حسين معلن مالين وناكسين أي إذن لي هاي مركوري مالين كانيو عناتو سيدا أنا عارف ما تقوى أي رجيني أين هذيك أنا عارف ما تقبتان ما أنت برنامج كأنه وحاسيد توس ولا هاللي ديردنا يكون سارنتاي وزيرك وحبر الشذا عبد الله أبو بكر معلن ما أنت وحوجنا هاي جودهان صوماليو إنه كده عي امتحان كدولة ده بل سوى حد عذي قبل كجذو أرضي كمذا إنيسان هيلين أيدي كاركودي فرنتي سفي عن أوديسو وزير maxay ku dhacday wasiir ardayda gobolka Gedo in qaar kamida laga soo tago ID card-koodi qaar kalena ID card-koodi loo soo qaado yaani waxaad kala joodaa ardayda gobolka Gedo sanadka hore waxay galeen kaalinta koowaad ee sanadkan hal carabi taas ma dhacisaan li xaasha lillah waxa sidoo kale halkaan ugu hambalyeynaya kuna bogaadinaya go'aankii geesinimada ay qaateen bahda waxbarashada ee balad xaawo maadaama maanta ay keenay ku dhacday sida anakan ugu dhacday oo ahayd in arday kamida laga soo tagay ID card-kiisi ay kana saasoo kale ay ku dhacday go'aankii ay qaateen wuxuu ahaa inay dhaheen ma galeeno ilaa la keena ardaygaas ID card-kiisi mana dhacayso imtixaan la furaayo maadaama hadalka qiirada laha ay soo jiitay waxa uu ahaa in uu arday yiri ardaygii shala aan isku galaaska ahayn oo markii break time-ka aan aadno halka door waalidku uu ka soo qaato wax ku soo wada cuni jirnay in ani maanta imtixaan aan ka hor galaaso ID card la'aan ma dhacayso yiri go'aanka rasmiga ee qaateenna wuxuu ahaa in halkaas arday loo baajiyay sida aan wada ognahay waxa sidoo kale halkaan fariin ugu diraya iskoolka sare ee degmada Luuq maamulahan uu ka yahay Axmed Cabdinuur Mahad maamula waa ogsoonahay inay iska jiraan dhibaatooyin fara badan xagga waxbarashada balse ma dareemi kartaa bari markii la dhaho gobolka Gedo wax arday kama soo bixin imtixaankii way ku wada dhaceen dhibaatada ay leedahay ma dareemi kartaa sidoo kale maamula arrinkan waa arrin laga soo shaqeeyay sida aan anaka hadda wada ognahay balse bari waxa taalo waxa waayo gobolka Gedo way dhaceen taasina wax anaka aan yeeli karna ma ahan waa ogsoonahay daawadayaasha qaar kamida inay leeyihiin adiga arday matiida maxaad u doodaysaa waxa leeyahay ardaynimada waan soo maray waxay tahayna waa ogahay maadaama arday Soomaaliyeed hooyis ay sida ay ku soo wax bartay aan ognahay maanta inaan u doodo waa iga mudan yahay ma ahan inaan ka aamuso ma ahan inaad danteedii bis aan fiirso wax walba iga soo gaarayaan waa u huriyaa waxaana leeyahay inta jiilka Soomaaliyeed hadhowda jiilka Soomaaliyeed haddaan saan u aamusno hadhowda jiilka Soomaaliyeed ma saan baa u aamusayna ilaahay baa nagu dharshay waxaasna xaq ma cadaaladna ma ee ka kaca fadhiga ha loo doodo ee dhikaarada ka maqan yihiin siiba qaasatan waxa la hadlayaa dhalinyarta gobolka Gedo ma ahan inaa ka aamustaan arrinkan waa inaa arrinkan ka hadashaan ka dhiidhisaan wax walbo nagu aadan aad ka qaadataan بالله عليكم داوداشيدا قيمه قدرنت مدن halka sida tooska aan uga daawanaysaan waa barta YouTube-ka aan ku leenahay ee maan official sidoo kale daawada hadii aan naga daawanaysid barteena Facebook-ga ee Cabdiraxmaan Xuseen waad ku maasan tahay balse waxaad ila dhageysataa dareenkii maanta ay ka muujiyeen reer Barad Xaawo hal qof oo lagu soo tagay ID card-kiisii Soomaaliya inaan aysanin xuquuqdeedii waxaan u baahanahay xuquuqdeeda la siiyo sida ugu dhaqsiyaha badan imtixaanka ardayda ila midka oo la gaayano inaan bariso imtixaanka ay galayaan aan ka qayb qaato sida aan filay insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق ويوسف حسين معلم نور waxaan kamid ahaa ardayda alqalam primary secondary waxaan rabaa inaan meeshan ka soo jeediyo cabashadaas oo ah in arday 12 sano class as la soo fadhinay Kenya 9 sano iyo bar aan wax ka soo akhrisanay 2 sano iyo barna Soomaaliya aan joognay in maanta uu waayo kaarkiisi aqoonsiga ee maaragtay imtixaanka sug waxa uu leeyahay oo kale dawladda Soomaaliya waxaan u sheegayaa farinteyda igana gaarsi ayuu leeyahay daawadayaasha qiimaha qadrinta mudan barnaamij laga hari kara maaha si share gareeya muuqaalkan oo like ta saara wixii ra'yigiina commentiga hoose nooga soo qora dawladda Soomaaliya waxa uu leeyahay ee daawashada dawladda waxa uu sheegaya dawladda mid baa u sheegaya arday 12 sano class soo fadhiyay laga yaabo hooyadiis inay yaanyo uga bixinaysay inuu maanta waayo kaarkiisi aqoonsiga waxay sababi kartaa inaad terrorist noqotid inaad nolosha ka dhacdid inaad noqoto mid aan naftiisa daryeeleen waad ogtihiin maanta oo u dambeysay qof ayaa naftiisa wuxuu u goyn gaaray shaqo la'aan waxay ka dhacday Baydhabo dawladda ma doonayna in maaragtay caqabad ku noqono dawladdeenu waan jecelnahay ninkaan aad u jeedin 12 sano class waxa soo akhrisanay
subax ilaahay keeno marna asaga break markaan u baxna $100 ama $1 waaridkii soo bixiyeen asla cunu jirnay ama aniga $1 asaga asla cunu jirnay ma dhacayso maanta in anna kaar aan qaato gacanteedii midigta ninkii fadhiyay kaar uu waayo inaan anna exam qaato asna uu qaadan waayo banaanka ka fadhiyo waxaan halkan ka cadeynayaa hadduu banaanka fadhiyo oo dawladda banaanka ku daawato inaan anna banaanka la fadhiisanayo inteeni kale isku klaaska ayana isku meesha isla fadhiyeen banaankaas aan isla fadhiisan doono fikirkeenana uu ahaan doono mid quraan hadduu caseeyo noqdo caseeyaan wada noqonaynaa hadduu terrorist ku biiro terrorist ku wada biiraynaa hadduu fikir ka duwan noo keeno asagaa maaragtay go'aanka iskale wuxuu yidhaahdo aan samayno baan ku dhaqaaqi doonaa insha allah wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi sidoo kale hadalkiisa waxaa ka mid ah haddii berri uu noqdo caseeye anigana waxaan la noqonayaa caseeye sug ayaa leeyahay caseeye ma noqonaysid arrinkaadani wax baa laga qaban doonaa insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan leeyahay keligaa kumaysan saameyn halkaada ID card oo laga soo tegay waa dareemi karnaa saameyntii adiga kugu leedahay balse waxaad ogaataa muwaadin in keligaa laga soo tegay isla luuq laga soo tegay baardheere laga soo tegay galbahari waxaan leenahay hooyada Soomaaliyeed dibka maanta ay dareemayso ardaygeeda laga soo tegay ID card ay ku soo korisay laga yaabaa yaanyo sida uu sheegay ardayga hadda aad daawanaysay haddii wasiirka uu run sheegayo ha soo hadlo haddii kale ay ka dhab tahay in laga soo tegay la soo iloobay qaladaad ay dhaceen diyaaradda ugu horeysa ee berri ee loo ku soo tagaysa ee Mandaq Airways ha soo raaciyo waa haddii uu run sheegayo wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya waxaa leeyahay hadalkan haddii uu dhalisado mise hadalkan haddii uu yareysto haddii arrinkan uu siyaasadeysan yahay ay tahay gobolka Gedo waxbarashadiisa sanadkan hoose aadinayna waxaan arki doonaa natiijada ka soo baxda bahda wasaaradda waxbarashada qaasatan ku aadan gobolka Gedo daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan inta barnaamij midkaan la mid aan ku kulmi doono salaamu alaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh